Asalaamu calaykum, kusoo dhawaada barnaamijkeena caafimaadka. Talo ma isweydiisay maraq digaag muxuu ka samaysan yahay, muxuu dhibaato caafimaad u leeyahay? Xaqiiqada ugu horreysa waxa weeye maraq digaag ayaa laga samayn maraq digaag. Taa waxaa sii dheer waxyaalo caafimaadka u daran oo halis ku gelin kara. Waxyaalaha ugu badan maraq digaag ka samaysan yahay waxaa ka mid ah milix ama cusbo xad dhaaf ah iyo dufan. Waa dufan loo yaqaano trans fat oo la ogyahay halista uu leedahay wadnaha oo xididdada yaryar ee wadnaha xidha. Maadaama ay xidho xididdada yaryar ee wadnaha, maadadan MSG waa waxyaalaha ugu khatarsan ee ku jira maraq digaaga. Maraykanka waxay u yaqaanaan suntii sida aayarka wax u dilisay. Maadadan oo lagu sameeyay cilmi baaris, maadada loo yaqaano MSG oo keenta cudurro fara badan sida goonjabka, sida dhiig karka, beer xanuunka, hilmaamka, sida boogaha caloosha, gastrida, sida xasuus la'aanta, waxyaalahaas oo dhan bay keentaa. Iyo xanuun loo yaqaano fibromyalgia oo sanadadan dambe ku soo badanaya Soomaalida. MSG waxaa laga soo gudbiyay gradient, taas oo loo yaqaano lafaha digaaga. Markay shirkadda Maajin ay bilaabaysay maraq digaaga, waxay ku diri jirtay lafa digaag la shiiday ama hilib digaag oo la shiiday. Waxaana la dhihi jiray wuxuu gelayaa beddelka hilibka digaaga ama suugada hilibka digaaga lagu daro ayuu gelayaa. Laakiin waxaa intaa dheer waayahan dambe laguma daro, waxaa lagu daraa filfil iyo waxyaalo kale oo carfis leh oo shirkaduhu kala duwan karaan sameeya maraq digaaga. Waxay ku taleen cilmi baarayaashu inuu beddelka maraq digaagu geli karo waxyaalo kale oo lagu suugaysan karo sida Soomaalida horeba ay samayn jirtay. Dabiiciya inaad ku carfaysin kartid cuntadaada sida toonta, xawaajka, kabsar caleenta iyo waxyaalo kala soo raaca. Kale intaad digaag karsatid maraqa ka miiro oo carfiso oo gasho qaboojiyaha ama talaagada oo maalintiiba in yar ku darso cuntadaada. Ogow waxaa jira shirkadaha aan ka fikirin caafimaadkaaga oo ku tiirsan jeebkaaga. Wixii cusub aan aqoon lahayn intaad isticmaalin